wuxuu ahaa dareen aan si fudud lagu cabiri karin. waa kulan filla Soomaaliya ku dhex maray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo waalidka dhalinyarada tababarka ugu maqan waddanka Eritrea. الحمد لله إلهي ما أدي سواي ما أنت ما نكسب فرحة بدنا إيمان إن شاء الله الله وجهه خير وقت. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan safar ku tagay waddanka Eritrea. ujeedka ugu weyn ee safarkiisa ayaa la xiriiray dhalinyaro halkaasi loo geeyay tababar ciidan si ay uga mid noqdaan ciidanka dowladda Soomaaliya. dooda ciidamadan muddo ayay taagnayd. safarkii madaxweynaha kadib waxaa bilowday hadallo rajo u badan oo la xiriiray in dib loo heli doono dhalinyaradaas. tan iyo markii uu madaxweynuhu Muqdisho ku soo laabtay waxa aad loo sugayay tilaabadiisa koowaad. shalay waxay ahayd maalin gaar u ah waalidka dhalay dhalinyarada tababarka loogu qaaday Eritrea. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka beeray wadadii aamusnaanta ee hogaamiyihii ka horreeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. wuxuuna shalay qaabilay qaar ka mid ah waalidka dhalay dhalinyarada ku maqan tababarka. muuqaal ay sii daysa filla Soomaaliya wuxuu madaxweynuhu u sheegay waalidka inuu soo arkay dhalinyarada ayna yihiin kuwa ay ka go'an tahay inay dalkooda u adeegaan. wuxuu sheegay in tilaabo walba oo geesinimo ah ay ku kacda qiimo gaara uuna si walbaba ciidankaasi ku soo celin doono dalka. muuqaalka ka sokow waxay madaxtooyadu qoraal ay sii daysa ku sheegtay inuu madaxweynuhu waalidka la wadaagay inay jireen caqabado haystay ciidanka balse hadda la xalliyay. lama faahfaahin caqabadahaas. qaar ka mid ah waalidka dhalay dhalinyarada ku maqan Eritrea ayaa soo dhoweeyay inuu madaxweynuhu booqday ciidankaas iyo inuu warbixiyay. haweeney ka mid ah dadkii hadlay waxay sheegtay inuu wiilkeedu maalin ka hor soo wacay isagoo aad u faraxsan. sidoo kale dareenka kulanka ayaa ahaa mid gabi ahaan jiiray dhaqankii hore ee filla Soomaaliya. maamulkii hore ee madaxweyne Farmaajo ayaa diiday inuu la hadlo waalidkan. waxaan maanta aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaheena maalintaan arkay la yiri Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu u duulay Eritrea waa iiga dhamaatay cabdi baa la yiraahdaa wiilkaygu inuu sariirta jiifay la ahayd geeriya nolol ma haynin. mar labaad baan ku mahadcelinayaa oo dadka maanta aniga gooni baan ka waan faraxsanahay wiilkaygu saako ila hadla wiilkaygu maanta ila hadlay. haddaba maxay ka dhigan tahay tilaabada madaxweyne Xasan Sheekh? si weyn ayaa loo soo dhoweeyay booqashada madaxweynaha ee ciidanka iyo kulanka uu la qaatay waalidka. Xasan Sheekh hore ayuu u ballan qaaday in haddii la doorto uu dalka ku soo celin doono wixii ka dhaqan ciidankaas. falanqayaashu waxay leeyihiin saddex arrimood ayaa ka dhex muuqata tilaabadan. kow, ballan oofin. madaxweynuhu wuxuu hore u ballan qaaday inuu waqti badan gelin doono soo celinta dhalinyaradan waxaana uu safarkiisu ka dhigan yahay oofinta ballantii. labo, dun hogaamineed. inuu Xasan Sheekh Maxamuud aqbalo la kulanka iyo warbixinta waalid maalmo badan ku hor ilmeynayay filla Soomaaliya ka sokow garashada qofka haddana dhinaca kale waa dun iyo dabci wanaagsan oo hogaamineed. saddex, rajo. madaxweynuhu inuu degdeg u qaabilo waalidka iyo inuu warbixin siiyo waxay muujinaysaa rajo la xiriirta in ciidankaas xaaladoodu fiican tahay degdegna loogu soo celin doono dalka. maxay kula tahay adiga?